bismillaahi raxmaan raxiim kulatu wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada halkaan naga daawanaysaan waa horsocod media aad marwar ka daawataan barnaamijyo kala duwan maanta barnaamijkeena ku daawan doontaan wuxuu noqon doonaa falanqeynta fanka aan kusoo qaadan doono fanaanka qamar sugaani oo dhawaanahan laga been abuurtay cod oo been abuur ah lagu sameeyey application loo yaqaano mixerka codka lagu bedelo arrintaas ayaan kaga hadli doonaa iyo maxaa ka jira xarigii la sheegay in lagu xiray magaalada Hargeysa sababo la xiriirta urka been abuurta ee ka sheegtay gabadh ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaad barnaamijkeena ku daawan doontaan fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe saar muuqaalka like saar commentiye hoos inoogu soo qoro waadna ku mahadsantiin sidaad mar رويال في شرابك رويال في اون كي رفات فيها كارهب الديفتي سيده روب اروريده رشيه لابتو ادريتي راحه نوع ربطا ازارته غوريغا دغتو تلاغده رسي سيده اما ويل كو روغتيدي شرابك ربطا هي رويال في او كاليا شرابك رويال في عنبر اسكو يالو روشام بخي عن الناس الرعبتا سيتو لرانديس لينت الروح جعشاي حبحب عن روح كرين مركو رارعو بخو هكا ريبن موسيو استروبري اسرائيليه كوكتيل رير بدنبا انتا سو لا سو ري ورشد ردقين oo laga reebay saarkii royal bay ku idishay sarabka royal fi aan ku bilaabnay fanaanka qamar sugaani ayaa maalintii shalay ahayd laga been abuurtay cod oo lagu sameeyay mixerka oo la leeyahay gabar soo wacday leedahay qamar sugaani waadi ureysay arrintan been abuurka ah oo laga sameeyay fanaanka qamar sugaani ayaa la sheegay shakhsiyaad caan ah oo ka tirsan kooxda xidigaha geeska sida ilo ku dhow fanaanada Asma Love sida ay sheegeen inay sababteeda lahayd codkaasi been abuurka ah ee lagu sameeyay fanaanka qamar sugaani waxa kale oo jirta arrin kale oo fanaanka ka hadlay oo jirta oo sheegay in lagu xiray magaalada Hargeysa xiriir ay la sameeyeen warbaahinta Soomaalida ayaa fanaanka qamar sugaani u sheegay inay tahay been abuur fanaanka qamar sugaani ayaa beeniyay in lagu xiray magaalada Hargeysa fanaanka caanka qamar sugaani maalintii shalay ahayd laga faafiyay cod been abuur ah ayaa gabar ka duubtay ee ku leedahay waadi ureysay fanaanka ayaa been abuur ku tilmaamay uurka ay sheegtay gabadha iyo xariga la sheegay in Hargeysa lagu xiray anigu waxaan ahay fanaan u dhashay qaranka Soomaaliland maxay tahay shakhsiyaadka iga been abuuranayo mar waxaa la yiri qamar sugaani wuxuu furay Ugbaad Aragsan waana been abuur Ugbaadna waa xaaskeyga mana furin sidaas waxa yiri fanaanka qamar sugaani ayaa bishii hore lagu jirdilay magaalada Hargeysa sabab la xiriirta safarkii uu ku tagay magaalada Hargeysa waxa ku soo badanaya jirdirka loo geysanaya fanaaninta iyo xariga magaalada Hargeysa waxa ku nool fanaaniin caan ah oo sharaf ku dhaxlay geeska Afrika oo dhan waxa ka dhisan kooxda fanka xidigaha geeska oo ahayd kooxihii ugu weynaa fanka geeska Afrika laakiin sanadihii dambe waxa soo wajahay cunsurnimo ku wadaan shakhsiyaad caan ah hadii uu mar fankii soo dhaxgalo qabyaalad iyo cunsurnimo waxa yimaada burbur ku yimaada kooxdan waxaa ka tagay fanaanka caanka ah ee geyga Soomaalida ay yaqaanaan Nimcaan Cabdiraxmaan Hilaac oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho sabab la xiriirta in lagu cunsuriyeeyo fanaanka kooxda dhaxdooda ee ku cunsuriyeen fanaanka Nimcaan Hilaac ayaa jecel inuu yimaado mar kasta ee magaalada Muqdisho laakiin waxaa sidaas u diiday shakhsiyaad caan ah oo kamid ah kooxda xidigaha geeska inuu yimaado magaalada Hargeysa ayagoo la xifaaltamayo magaalada Hargeysa fanaanka Nimcaan Cabdiraxmaan Hilaac ayaa ah agaasimaha wax soo saarka gobolada Awaabari waxaana loo magacaabay bishii June ay aan soo dhaafnay fanaanka Nimcaan Cabdiraxmaan Hilaac ayaa showyo waaweyn ku qabsaday qaaradda Yurub wuxuuna showyo kale ku qabsaday Soomaaliya ee kamid yihiin magaalada Jigjiga fanaanka ayaa la sheegay inuu mar uu tagi doono magaalada Hargeysa intaasi ayaan ku soo gabagabeynaa warbixintii aan ku falanqeynaynay fanaanka qamar sugaani iyo xaaladiisa xariga Rumiyam Saben ayaan ku falanqeynay laakiin fanaanka ayaa beeniyay in xirigaas uu ahaa mid been abuur ah fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe saaro
kambalaalka furo ee muuqaalka laag saara commentiga hoos inoogu soo qora waadna ku mahadsantihiin sidaad mar walba noo daawataan.